السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين soo dhawaada walaalaha qaaliga ah oo igu xiran oo halkan ku midownay haday ku tahay markooda ay timaadid subscribe saar channelka like garay muuqaalkan mar walbo si cashirada kuugu soo dhacaan waa inaad subscribe saaritid intaas kadib maanta waxaan wadaa wax aad u faa'iido badan maalmaha ka dhiman ciida caruurtiina uga faa'iideey haduu rabbi idmo hadaa u baahan tahay cunug qurux badan cunug miisaankiisa isku dheelatiran cunug dhinac walbaba kaamilka ah oo yaani fitamiinaadkiisa kor ay u soo kaceen hadaa u baahan tahay cashirkan ka faa'iideyso waxaan ugu talagalay caruurta jira sanad ilaa 3 sano ayaa ugu talagalay meeshan soo jeedin waa sisinta waxa loo isticmaalaa hadii jeer waxyaabo miisaanka kordhiyo caruurta oo miisaan xumada heeso aad waxa ku jira fitamiino aad u badan ee caruurta jirkooda aad weyn laga maarmaan u tahay inay u helaan isku day marka mar walba inaa u sameeyid aad waxa ugu isticmaali kartaa casri ahaan waxyaabaha lagu dari doono iyo waxyaabaha aan lagu darin inta waa arki doontaan insha Allah cashirkan hooyooyin ayaa soo codsaday aan rabaa inaan uga faa'iideeyo adinkana insha Allah ka faa'iideysta haduu rabbi idmo halkaan aan soo dhigay dhamaantiina maadaama hal qof bis wax aan loo sharixi karin waa in ay ka faa'iideystaan hooyooyinka kale Soomaaliland fahmin hooyooyin qof walba waxa iska rabtaa si gooni ah in wax loogu sharaxo balse waxa aad u fiican maadaama wixii ay yihiin wax laga faa'iideysan karo oo mujtamaca dhan hooyooyinka qaasatan ay u baahan yihiin in si public ah aan u soo dhigo halkaan oo aad uga wada faa'iideysataan intaas kadib waxa soo qaadanaysaa bakeeri hafkiisa oo ah sisin فهمتي سيسين بكيرة في كيسة كسوديجو كبعد والصورة سيسنت واتسونا دي فينيسا وسق وبضاني لا لا سيسنت ومدة عديدة لو يقان أو سيسنت عد مدة مذو معها سيسنت مركز صورة سونا دي في سيد هدو إلى إدمو وحاسوق هذا نسا ديكسي دبك آيات سارة دا مفهمتي أنت هذا سيسنت لقنا وحاد وفاعن سيسنت عبار بينا لديكتي سي وسق ديوردن حوغا معناها وفوجكناته oo aad wasaqda uga soo baxdo marka biyo la dhigo wasaqda ka soo baxayso 10 daqiiqo camal ka bacdi iska nadiifi oo ilaa 4 mar camal iska dhaq kadib digsi dabka saaro biyo ku shubo sisintiya ku darsanay biyo ku shubeedid waa 2 bakeeri oo biyo ah ma fahamtay kadib dabka waa u gaabinay markay bislaato waa ka soo qaadanayda sisinti waxa kale oo soo qaadanayda xabad tufaax ah waa fiiqe tufaaxi marka aad fiiqdid ka bacdi waxaad sameynayda baash oo uumitada loo isticmaalo oo digsiyada la dhex dhigo taas ayaa korka ka saaraysa digsiga biyo ku shube waa dhex gelinay hadii aad haysan waxa sameey kartaa tufaaxa baaqul yar oo kale to ku dhex ridanay biyo digsi ku shubanay waa ku daboolay ma fahamtay waxa la diidayaa macnaha in tufaaxa aad u karsamo saas ayaa aad uga fiican in loo sameeyo marka tufaax markuu ku jilco oo ku bislaado kadib waxa soo qaadanaysaa blenderki marka soo qaadatid waxa ku shubanaysaa sisinti aad soo bisleeday oo digsiga dabka la soo saartay ayada iyo biyihii jileec ay noqonay gacanta xitaa sadeeda ku tiraadid way kala dhacaysaa ma fahamteen aad ay macnaha bajaq u noqonay ee u jilcanaanaysa ka bacdi waxa sameynaysaa sisinti blenderka ku shubay waxa kale oo blenderka ku shubanaysaa wixii dhan blenderka markaa soo geesid sisintii soo bislaatay tufaaxii soo bislaaday waxaad kale oo ku darsanaydaa haduu ilaahay idmo caanaha waxaad isticmaali kartaa hal bakeeri ma fahamtay hal bakeeri oo caanaha isticmaale caanaha waa full cream inay noqdaan ama caanaha xoolaha oo freeshka ah ka bacdi waa shiidaysaa oo blenderka waa ku shiiday marka aad shiidid waxa kale oo ku darsan kartaa malab ama sokor Soomaalida fahmin si fiican marka aad u shiidid waxa ku shubaysaa ama galaas ama weelasha caruurta loogu talagalay ayaa ku shubay cunuga yarna waxa ku sii kartaa qaado cabitaan ahaan waad u sii kartaa inta u shaandheysid ama u miirtid kii kale oo 2 sano wixii ka weyn ahna galaas ugu shubo ama bakeeri wixii markaas aad isticmaashid ayaa ugu shubanayda kala arag marka waxa waaye waa cabitaan isku dheelatiran nafaqeysan mar loo isticmaali karo siirilaag ahaan oo mushaari ahaan loo isticmaali karo inta la adkeeyo oo caanaha
ilmaha xoogaa laga taqfiifiyo laga yareeyo waa adkee kartaa oo caruurta yaryar oo kale waa siisan kartaa marna waa sidaan hadda kuu sharaxayo oo sidaas ayaa ugu sameyn kartaa ilmaha insha Allah waxyaabahan iyo waxyaabaha la midka ah aad bay jirkooda ugu baahan yihiin in loo sameeyo maadaama aysan ka maarmin oo ku jiro fitamiino aad u badan oo jirkooda wax badan ka saacidi karo isku day marka in aad u sameedid oo galab walba aad siidid casri ahaan aad u siisatid waxa kale oo aad u sii fiican caruurta 2 sano marka xoogaa ay kaaga weyn oo 2 jir la wixii ka weyn galabkii oo kaleeto timir la siiyaa caruurta timirta iyo cabitaankan marka aad isku siidid kala arag waa timirta lafaha uga bixin waa u jilci kartaa ama sideeda timir jilacsan jirto taasoo kala u soo gadanay waad siinaydaa maasha Allah waaye waxyaabo badan oo kala arag ku jiro fiber badan ku jiro calooshan u socodsiinaydaa markastana ilmaha waxyaabaha aadka u fudfudud oo kale way cunayaan ilmo waxa jiraan abiteedkooda aad u xiran yahay kuwaas oo kale waxyaabahaas waxa kamid abiteedka inuu ka xirmo calooshiisa cunuga hadeesan socon laazim way adkaanaysaa in cuntada uu cuno waayo wax walba calooshii isugu tagay caloosh dhaqdhaqaaq ma sameynayso halkaasna cunug jirooyina ku dhici karo sida bakteeriyada caloosho kaleeto gastriga kale waxyaabo badan ku dhici karo cunug mar walba caloosha inuu haysto ilmaha biyo badan oo cad hala siiyo cabitaanaadkan oo sirilaagyada laga sameeyo kale loogu dadaalo waxyaabo badan oo waxa jiro aad u fudud oo hooyo kasta ay sameey karto balse aysan ogeyn waxtarka ugu jira caruurteeda isku day marka waxyaabahan oo kale inaad sameeyid sisinta noocyo badan loo isticmaalaa habab badan loo isticmaalaa maanta qaybtan aan ila wadaagay maadaama ay diiday soo dhowdahay gabar walaal iga soo codsatay in aan soo geliyo waxyaabaha caruurta jira sanad ilaa 3 sano aad u intifaacayo ma fahamteen adinka si public ayaan igu soo bandhigay ka faa'iideysta maadaama hooyooyin aad tihiin ay ugu xirantiin waa inaad ka faa'iideysataan waxyaabaha waxtarka leh si mar walba aad u heshaan maxaa la yiraahdaa wax wanaagsan oo natiijo saxsan sidaan camal noqon kala arag waa nafaqadeeda isku dheelatiran waxba aan laga qaban karin hooyo kastan ay u baahan tahay hooyooyinka TikTok iga xiran ayagana waxa leeyahay soo dhawaada badankiina TikTok iga soo raacdeen waan dareensanahay marka asxaabteeda ku leeyihiin markastana waxaan jeclahay waxyaabaha waxtarka neele inaan ila wadaago oo aan is dhihi karo hooyo kasto way ka faa'iidi kartaa maadaama hooyooyinka ay isku wada dan yihiin mid wax markay ka sheegato mid kaleeto waxa moodaa inay qalbigeeda ku jirto oo sidii camal ay wax walba uga sheeganaysaa marka isku danbaa leeyahay hal iska faa'iideysto channelkana meel sare gaarsiiya like ta ugu dadaala share gareeya ma fahamteen meesha dadnan ka dhaqaajin waxawaaye waxyaabo badan oo culeysyo badan iska jiri karo oo dhankeyga ka imaan karo sida in aan iga gaabiyo waxyaabaha waxtarka leh macnaha aan soo gudbin waxyaabaha la soo gudbinayo had iyo jeer faa'iidadooda dadka markay arkaan aad waxa u wanaagsan inay ku sabot gareeyaan waxyaabaha aragtidna ay ku sameeyaan marka taas ay mid la mid waad sameedeen waana insha Allah la iska gaari doona laakiin adinkina dhankiina ha ka gaabinina dadaalo oo wax sameedaan mar walba share gareey muuqaalada group-yada taqaanaan ku share gareeya meel kasta hala dhigo insha Allah mid kale to like ta yaa laga halmaamin like ta waxa waa caawiyaha ugu weyn aan rabo in aan wax badan ka faa'iido wax badanna ay tareeso aan ogahay insha Allah marka hooyooyin cashirkan aan ila jeclaystay aan soo gudbiyay wax badan aan ogahay insha Allah inaad ka faa'iidi doontaan marka waxaan leeyahay dadaal wacan hooyo karti badan noqo hooyo nafteeda iyo nafta caruurteeda u dadaasho noqo hooyo og waxyaabaha ilmaheeda waxtarka u leh noqo oo ay u sameey karto waan ogaa dadaal qaarkiina ma ku yaro laakiin dadaalkii marmarka qaar wax way bini aadan iska yaa waxba si ka noqon karo isku day marka naftaada inaad dhiirigelisid naftaada inaad horumarisid waxyaabaha caajis ku keenayo kale inaad ka fogaatid caajis shaydaanu ka ahaaday
insha Allah waxaan rajeynayaa hooyo kastoo say jeceshahay inay u hirgasho ay u noqoto anigana waxaan rajeynayaa hadduu Ilaahay idmo hooyo walba oo Soomaaliyeed in aan ka caawiyo caruurta waxyaabaha ku taxalluqa muuqaalkeen intaas ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.